Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka. Magacaygu waa Mustafa, halkaana waa la socod dunida cusub. Maanta waxaynu ka hadli doonaa internetka mustaqbalka iyo siduu isku bedeli doona 10 ilaa 20 sano soo socota. Maxaa cusub oo ayna filana aan bilowno. Internetka muxuu yahay? Internetka waa shabakad caalami ah oo isku xirta malaayiin kombiyuutar, telefoonno iyo qalab kale. Waxa uu sahlaa isgaarsiinta, waxbarashada, ganacsiga iyo helitaanka xogta. Laakiin internetka berri waxaa la filayaa inuu ka duwanaan doono kan maanta. Mustaqbalka internetka wuxuu noqon doonaa mid aad uga dheereeya kan maanta. Soo dejinta filimaanta ama faylal waaweyn wuxuu qaadan doonaa kaliya ilbiriqsi yar. Dalal kala duwan waxay durba bilaabeen cilmi baaris ku saabsan 6G oo la filayo inuu ka dheereeyo 5G-ga aynu maanta adeegsano. Mustaqbalka internetka wuxuu gaari doonaa meel kasta oo dunida ka mid ah, xitaa tuulooyin fogfog, saxaro iyo iyadoo la adeegsanayo dayax-gacmeedyo. Tani waxay dadka u sahli doontaa waxbarasho iyo ganacsi meel kasta ay joogaan. Sirdoonka macmalkana wuxuu internetka ka dhigi doonaa mid aqli badan. Mar kasta aad wax raadiso, AI-ga wuxuu si dhaqso leh u siin karaa jawaabo kooban, talooyin iyo caawimo ku habboon baahidaada. Guryo casri ah. Qalabka guryaha sida nalalka, qaboojiyayaasha ama firinjeeriga, albaabka iyo kamaradaha amnigaba waxay ku xidhnaan karaan internetka, waxaana laga maamuli karaa moobilkaaga meel kasta oo aad joogto. Baabuurta iswada. Baabuurta mustaqbalka waxay wadaagi doonaan xog ku saabsan waddooyinka, shilalka iyo cimilada si safarrada ay uga dhigaan mid ammaan badan. Waxbarashada. Ardayda waxay geli karaan fasallo toos ah oo ku yaala dalal kale. Waxay isticmaali karaan AI, maktabado dijitaal ah iyo qalab casri ah oo fududeynaya waxbarashada. Ganacsiyo badan ayaa ku wareegi doona internetka, dad badanna waxay ka soo shaqeyn doonaan guryahooda iyagoo adeegsanaya internet xawaarihiisu sareeyo. Caqabadaha. Inkastoo internetka mustaqbalka uu leeyahay faa'iido fara badan, haddana waxaa jiri doona caqabado. Weerarka internetka, cyber attack, xatooyada xogta, wararka been abuurka iyo khiyaanooyinka internetka. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo sirta xogta oo la isticmaalo ereyo sir ah oo adag password adag, lana xaqiijiyo xogta la akhrinayo ama website-yada aad gelayso. Haddaba cidii joogta, sidee loogu diyaar garoobi karaa? Qof kasta waa inuu barta isticmaalka kombiyuutarka, horumariya Ingiriisiga, barta xirfado dijitaal ah, fahmo AI-ga iyo internetka, la socda tiknoolajiyada cusub. Sirdoonka macmalka maanta sida ChatGPT, inkastoo lagu jiro sanadadoodii hore, haddana wuxuu ka caawiyaa dadka inay helaan jawaabo degdeg ah, turjumaado luqadeed, qoraallo, isla markaana wax ka bartaan. Tani waxay muujinaysaa inay durba ka noqdeen qayb internetka. Shirkadda Starlink ayaa maanta waxay bixinaysaa internetka iyadoo la adeegsanayo dayax-gacmeedyo oo dad badan oo ku nool miyiga ama meelo fogfog ay hadda heli karaan internetka xawaare sare leh. Shirkado sida Tesla iyo Waymo waxay soo saareen baabuur awood u leh inay iswadaan marxalado badan. Inkastoo ay tiknoolajiyadu weli horumar ku jirto, haddana waxay muujiyaan in xalka uu mustaqbalka ku jiro. Waxyaabahan aan maanta ka soo hadlay ma wada aha mala-awaal. Qaar ka mid ah maanta way jiraan, qaarna si degdeg ah ayay u soo horumarayaan. Taasi waxayna tusaysaa in internetka mustaqbalka uu bilowday, isla markaana sanadahan soo socda waxay noqon karaan kuwo ka awood badan, ka aqli badan, ka faa'iido badan kan aan maanta isticmaalno. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin haddii aad halkaan nala soo gaarteen. Muuqaalka xaqiisa sidaas iyo amaan Allah.